saaxiibayaal soo dhawaada xubinteena xog waranka dunida aan ku bilownay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa kala hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed dadaalada loogu jiro sidii nabad waarta loogu soo dabaali lahaa waqooyiga Itoobiya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Xogaya Blinken ayaa qiray dadaalka ay dawladda Itoobiya sii wado ay kaga shaqeynayso gargaarka bini'aadantinimo ee aan la hirgelin iyo soo celinta adeegyada aasaasiga ee gobolka Tigray iyo sidoo kale gobolada deriska la ee Canfarta iyo Amxarada. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo heshiiskii xabad joojinta ahaa ay ku jiraan in laga saaro dhammaan ciidamada shisheeye iyo hubka dhigis lagu sameeyo ciidamada Tigray. wuxuu Hussein Mareykanka ay weli ka go'an tahay taageerada hanaanka midowga Afrika uu hogaaminayo ay ku jirto habka kormeerka iyo xaqiijinta midowga Afrika. dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga saacadii hore maanta waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 35 qof. dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn dalkaas halkaas si xooggan looga dareemay. mas'uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in dhulgariirku ahaa 5.9 taasoo ka hooseysa qiyaastii 6.1 ay bixisay hay'adda sahanka jugraafiga ee Mareykanka. wuxuu ka dhacay degmada Guleyka ee gobolka Densvik inkastoo sidoo kale ruuxay magaalooyinka kale u dhow. waxaan ku soo toosanaysa waxan iyo gariir weyn ayay Reuters u sheegtay Fatima oo degan gobolkaas. waxaan ka soo baxnay guryaheennii annagoo argagaxsan haddana waxaan ku sugannahay bannaanka ayay raacisay. wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa Twitterka ku soo qoray in 35 qof ay ku dhaawacmeen kuwaasoo 22 qof ay ku dhaawacmeen gobolkaasi mid Istanbul ah iyo 2 kale oo gobolada u dhow. Turkiga ayaa ku yaala mid ka mid ah goobaha ugu badan yihiin dhulgariirada adduunka. gobolkan ayaa ahayd goobtii ku dhuftay dhulgariirka cabirkiisu ahaa 7.4 sanadkii 1999 oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee Turkiga 10 sano ka dhaca. dhulgariirkan ayaa dilay in ka badan 17,000 oo qof oo ay ku jiraan ku dhawaad 1,000 qof oo ku dhintay Istanbul. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ogolaatay in dhugmatiyada cashuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019 baadigoob ugu jiray sida ay u heli lahaayeen dhugmatiyada lacagaha cashuurta ee uu bixiyay Donald Trump muddo 6 sano ah ay ku jirto 4 sano oo ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka. Donald Trump ayaa dhamaadkii bishii October weydiistay maxkamadda sare inay diido amar ka soo baxay maxkamad ku taala New York oo fasaxday baaritaanka cashuur celinta Donald Trump. go'aanka maxkamadda sare ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka ku noqonaya guuldaradii saddexaad ee ka soo wajahda maxkamadda sare sanadkan oo kaliya. isla dhanka Trump wali wax falcelin ama jawaab kama soo bixin.